Somaliland ayaa sanad huba ku soo bandhigtay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool taas oo ay sheegtay inay ka qabsadeen ciidamada Puntland ee weerarka ku soo qaaday. Faahfaahinta warkan waxa si aan baqaadaya wariyahayaga Cabdikaafi Maxamed Cabdi oo laascaanood ka soo diray. Mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Somaliland ayaa gaaray deegaanka Tukaraq oo shalay dagaal ku dhexmaray Puntland iyo Somaliland. Mas'uuliyiintan ayaa soo bandhigay hubay shalay ka qabsadeen maamulka Puntland iyagoo mid u sharaxay qaabka ay u soo qabsadeen hubkaasi. Jiida hore oo wajiga hore ah ayaa weerarkii ugu cuslaa ee ay diyaarinayeen waayadan oo dhanba ayaa laga soo qaaday. marka runta laga hadlo dagaalkaasi dagaal adag buu ahaa muddo 4 saacadood iyo bandha uu socday. ciidanku markaa waxay gaadheen halka ay joogaan bay 12 kiiloomitir hore u dhaafeen. way ku dhawaan lahaayeen Falleedhiyaale godqaboona way qabsadeenba oo imika inoo jirtay 8 kiiloomitir way qabsadeen oo tuulo ah oo ahaydna tuuladii difaaca u ahayd ciidamada Puntland waa la isla dhaafay. waxa lagu qabtay weerarka hore ayaa toddoba technical iyo halka taangi oo halka aad ku arki doontaan ayaa lagu qabtay weerarka gelinka hore. gelinka dambe weerarna culus baa yaa dhacay oo kowdii wixii ka dambeeyay jadii caawaqamadii ay wixii ka dhasheen deeyo aanu halka ku aragno saak waxaan taliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhammaan uga hambalyeynaya guusha ay gaareen. wixii ku dhintii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacmatayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa dambi dhaaf iyo inuu Ilaahay ya abaalkooda mariyo. gara baaxad leh meel kasta jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo fargaliyana 10 iyo dharbaaxa fiican darasada fiican ka bixin kara way. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba uga hambalyeynaya dhammaan ciidanka iyo saraakiishooda iyo taliskooda guud. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambal iyo guusha gaadheen. laakiin ciidamada qaranka waxaan ugu hambalyeynayaa inay goobtii iyo guushii iyo faramaroojintiiba ay dhankooda soo raacday inaanu aragno ciidankii qaranka oo jawaab bixiyay oo ku guuleystay goobtii iyo guushii iyo faramaroojintiiba helay. kuwa loo sheegayo dhulkii reerka aan maanta ka soo jeeda constituency-ga uu ku lahaa uu soo dhamaaday. rag badan oo u soo horeeyay meesha joogaan oo taliski Maxamed Siyaar raggii ka xoreeyay badankooda rag badan baa meesha ka muuqda iyo raggii ay tababareen. ciidamada qaranka Soomaaliland waxa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horeeyaan oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay la u tagaan waxay taraan mooyee ay waxba yeelin. aad iyo aad bay taana u ammaanayeen. tiiba hadda la deyn waayo la soo shaqeynaya maalintii la weeyday UN-ku timina waa u sheegnay inaan ciidanka Soomaaliland meesha uu tagan yahay joogaya ilaa wada hadal la gelayo. Soomaaliland wada hadal ay diyaar u tahay. waa laga badbadiyay waxa la siray intay ku maqan yihiin dabaaldega ka gaarsiiya. waxa weeye waxaan salaad idinka siinaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. wuxuu na soo faray in la idinku ogyahay shacabka Soomaaliland meel uu joogana waxaan ku dhiirin karayaa waxa weeye guryaha aad ku hurtaan waa ciidanka. Tukaraq waan saaka tagnay ayaa degan sidoo kale jiidaha isku horfadhiyaan Puntland iyo Somaliland ayaa iyaguna ah kuwa aad u xasiloon. Fataax Maxamed Cabdi, TV-ga SBC, magaalada Laascaanood.